Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada channelkayga Hiba Hibaaq Channel. Asxaabay maanta waxaa inoo wadaa run ahaantii qiso aad iyo aad u xanuun badan, aad iyo aad iga murugo aan uga gala run ahaantii. Marka asxaabay insha Allah waxaan jeclaystay inaan idinla soo wadaago run ahaantii caawa ayaan maqlay wallahi qisada. Waxaan jeclaystay saacad ka hor ayaan maqlay. Waxaan jeclaystay inaan idinla soo wadaago insha Allah inaguna ra'yigiina oo wanaagsan oo ma aragtay qurux badan wad ka dhiiman doontiin insha Allah bismillaahi kariim. Asxaabay qisada sidan ayay u dhacaysaa. Qisada waxay soo sheegtay gabadha ay ku dhacday saaxiibadeed Ruma ayay soo sheegtay. Asxaabay qisadu waa gabadh Soomaaliya ayay joogtay, wiil ay jeclaayeen ayay isguursadeen. maasha Allah ilaahay wuxuu kala siiyay gabar yar. Gabadha yarada hadda 8 jir maasha Allah Allah ha xafido. Wiilkii uu tahriibay wuxuu tagay Yurubtan meel kamid ah ayuu imaaday. Wiilkii markuu imaaday halkan babygeer iyadoo yar ayuu ka imaaday. Intaas oo sano 8 sano ayuu ka soo maqnaa. Yaan hadal inagu dalin asxaabay. Wiilkii wuu wanaagsanaa gabadha markii ay wada joogeen. Wiil wanaagsan buu ahaa maasha Allah, ya isjecel dad ma aragtay maasha Allah aad iyo aad isku jecel bahaayeen. Wiilkii markii Yurubtii tagay wuxuu ka yiri inankii waxay ku tiraahdaa markaste walaalay bal qolka aad degantahay guriga aad degantahay bal itus never maba tusaba. Walaalo halkii aad degantahay bal itus nama anaad ii baahan tahay mise gurigaygaad u baahan tahay. Ila ninkano balwad ayuu khabaysanayaa. Way yaabtay gabadhii warwar waxay dhahday wiilka ninkani ma naag buu guriga ku haystaa ma balwad baa jirta maxaa jira. Gabadhii sidii u walwalsan oo marka ay weydiisay ku tiraahdo walaalo qolkan meeshan aad degantahay tus sidee tahay oo maxaad igu diidan tahay gurigaaga. Marka ay tiraahdo caydii adduunka ayuu soo dhigayaa. iyadii khaladkii dib u saareenaya adiga rag soo xareystay markaan ka baxay dabadayba rag soo xareysatay caydii adduunka de waxay ku leedahay inta aan weydiinayo waxaan ka baqayaa bay kula marka aan weydiiyana qaylada marka intaan aan weydiina waxaan leeyahay waxba ha weydiin anoo nafteydii raba inaan weydiiyo oo niraahdo bal maanta ay walaalay bal itus gurigaagii oo walwal iga haya bay tiri bilow maxaa gurigiisa ku dhex jiro ku diiday adoo naagtiisii adoo ilmaha yar u haya maxaa kugu diidan yahay gurigan oo walwal haysta marka aan weydiiyana aniga umba khalad dib soo saarayna ayaa adiga sidana adiga dulliya adiga maxay caydii adduunka iyo soo dhigayaa bay tiri. Gabadhii waxay tiri anoo murugada ku jira oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa iska murugaysano waxay tiri naftaydiiba khaatiyaa la taagan ayaan maalimaha kamid ayaan ka yiri bay tiri walaalo noo dacwi waadiga maana sharcigii helin inoo dacwi haye markaste haye buu ka yiraahdaa. Maalimaha kamid faamilka ayaa ku yiri waryahan gabadha intaas oo sano ayaad ka maqan tahay halkan ayay joogtay ku sulcaysaa horta wuxuu ku wanaagsanaa haday ka tiraahdo lacagtii adduunka isii may kuma soo celin jirin maya kuma soo celin jirin saas uu soo dulligi jiray lacagta. Maalimaha kamid ayay ku yiraahdeen faamiligiisu wiilkan iyo gabadhan dobre ayay haayeen habra wadaag amba dobre ninba sidoo u yaqaano laba walaalo ayaa kala dhalay. Faamiligiisa ayaa ku yiri wariya khalad baa ku socotaa gabadhan intaas oo sano ay halkan ku fadhidaa way ku samraysaa waxa aad samaysaa waa inaad meel geysataa gabadhan oo u dacwidaade. Wuxuu yiri hay gambaala timide gabadhii gambaala markii timiday wuxuu ka yiri muddo ay halkii ku sugnayd gabadhii wuxuu ka yiri lacag sidaas waxa ay rabto ayuu lacagta soo siin jiray. waxay ku tiri walaalay waan kuu baahanahay adna waad ii baahan tahay intaas oo sano ayaan kala maqanahay awlaad baan u baahanahay gabadheena hadda waa 8 jir ii kaale walaalay maxaad igu diidan tahay inaad ii timaado. wuxuu ka yiri waan ku imaanayaa sug marba sanadka kale ayuu sii dhiibaa. maalimaha kamid ayay ku tiri walaalo ii kaale de waan kuu baahanay lawaad ii baahan tahay. wuxuu ka yiri walaalay waxaan ku imaanayaa ma jirtay war baan ku hayaa haye waxaad imaanaysaa horta inta ka hor waan iga soo booday ayay ku tiri
ii imo wuxuu ka yidhi alla iminka haddaan ku imaanayaa waxaad samaysaa walaaloy fadhi baad soo dhiganaysaa qolkaad iska bedelaysaa horta markay timiday gabadhan saaxiibadeeda markay gambaala timiday gabadhan saaxiibadeeda ayay kusoo degtay ee aniga qisada iga sheekaysay gabadha markay kusoo degtay qol ayay laba qol ayay kiraysteen qol gabadheydii ayay u sharaxday si wanaagsan oo qurux badan ugu sharaxday qol iyadii baa sharaxatay inaba caadi maaha mar ali iyo markii ay ku tiri waan imanaya ay ku tiri wallahi maad imanaysaa haa waan imanayaa qolka waad bedelaysaa fadhiga waad bedelaysaa adduunka waad wada kala bedelaysaa maxaa la dhahaa waan kuu imaanaya haye gabadhii farxadda ka dhacaysa xoogaa kadib unbuu ka yidhi unbay ka tiri walaalo dee waniga ku sugayey kumee soonigan maaragtay kuu diyaaray ku sugayey warkaasi ma jirto walaalaye war ma kuu sheegaa unbuu ka yidhi hee jabuuti baa tegaysaa oo walaala jabuuti maxaa ka doonaa dacwadaada halkaa baan kaaga bilaabayaa naxadintii adduunka gabadha walaala halkan bay dacwad kaba fududahay gambaalee jabuuti maxaa igala doona ma inaan balanbariya boyhoof dib u gala ayaa rabtaa jabuuti dadna kama garanayo meel aan u soconayno ma jirta jabuuti halkan bay dacwadeedu ka fududahee intan iiga dacway walaalkayo naa adigaa lagu idhaahdaa jabuuti aad ma aadayo ayay ka tiri jabuuti ma aadaysid haa kadib markii dambe reerkii baa la hadlo ka yidhi wardee gabadhu meel aliya meel ala socota ma jirto jabuutina dadka ma garanaysee allahaaga haddaad taqaanid halka ay joogto gabadha ugu dacway marxabo buu yidhi intaa iyadoo gambaalo joogta gabadhii waxaa ku dhacay gaas tirig ayaa ku dhacay intaa yar bay leekatay way dhownaatay way fool xumaatay warwar qayladiisa ayaa ka daran cayadiisa mar ali iyo marka ay telefoonka ka qaban weyda amba mar ali iyo marka ay weydiisay ka tiraado walaalay bil qolkaaga ay tus cayadii adduunka nayaa ninbaa guriga ku haystaa ninbaa kaasii baxay ninbaa sidana waxaa la yidhi bida intay bidays oo dhan bay bida ku tiraahdaa inantii dagaal iyo wuxuu mar ali iyo marka ay maad aragtay ay kelmada ay weydiiso walaalay bil qolkaaga ay tus amba gurigaaga ay tus naamaanaadii baahan tahay mise waxaad u baahan tahay gurigayga ima odhan kartid gurigayga ay tus naayaa adaa rag guriga ku haysta naayaa adigaa sidana caydii adduunka ayuu gabadhi u dhigaa yaan haddan inagu daalin asxaabe wuxuu ka yidhi gabadhi waxaad samaysaa buu ka yidhi turkiga ayaan ku geynayaa gabadhi markay tahay horta bishan 8 imikana dhaaftay sanadkan ayay ku tiri ayuu ka yidhi imika ayaa hadda kuu imaanaya kadib markastuu ay ku tirahdaba walaalayii kaale uu haye ka yidhaahdo unbu kalba ka yidhaahdaan kuuma iman karayo shaqadiibaa dib laygu biiriyey kuuma iman karayo bilaa sharci baan ahay kuuma iman karayo sidan baa jirta aduu dee nin raba inuu dee u imo qofka bili-aadanka sababtuu dee marmarsiyadu keeni lahaa unbuu gabadha u keena sidan baa igu dhacday sidan kale igu dhacday sidan baan ahay sidan kale aan ahay sharcigiibaa layga haystaa maxaygiibaa sidana waxay tiri gabadhii samarkii adduunka waxay tiri gaas baa igu dhacay dhakhtar baan galay intaabaan leekaaday adduunka warwar iskagii baan ka walwalayaa ma aragtay hadalkiisii problemkiisii waxay tiri dee dhibtii adduunka intaabaan leekaaday bay tiri gabadhay xanuun waxay tiri maalimaha kamid ayuu ka yidhi walaashay wax ma ku sheegahaa jabuuti tag baan kudha waa didi maaha dee turkigaan ku geynaya markaasi farxaddii adduunka dee wallaahi turkigaad iga dacwiyey haa markaasi ku tiri walaalay haddana way yar jibootay walaalay halkan maad iga dacwidida maxaad turkiga igala toonay gabadha saaxiibadeed baa ku tiri walaalay dantaada masale ay baa loogu seexdaay sida uu door maalin kasta horta gabadha iyada u imanayso waxay ku odhanaysa walaalay dhibtaaba ay haysada maxaan sameeyaa walaaloy waxay tiri gabadhay walaalay dantaada masale ay baa loogu seexdaay dantaada intaad ku gaadhaysa ninkaagana waad jeceshahay walaalay waxaad samaysaa meel alli iyo meesha uu kuu qaado u raac maxaa la yidhaahdaa dee dantaadana ku samir walaashay ilmahaabaad haysataa ma aragtay may wallaahi ma rabo anugu meel aan halkan ahayn halkan baa ka fudo dacwadii muxuu kolba meel ii bay haafinayaa kolba meel ii mar ileeyahay mar ali iyo marka ay tiraahdo dee walaalay bar halkan baa ka fudo ay tirahdaan afkiisa ka unbuu goosanaa wax ma ku sheegaa idhagayso hadalkayga ma maqlaysaa mise ma maqlayso dadka bili-aadankaad maqlaysa hadalkooga soo jabuuti maa diidin haa turkigaa tegaysaa haye farxad gabadhay bas turkigan tagay haa alaabtaada iibi maxay waxay tiri gabadhay iyo gabadhay kale ee saaxiibadeeda waxay tiri alaabtii baan la iibiyey alaabtii dee guriga u taalay ayay la kala iibisay gurigiibay fasaxday waxay ka yidhoon
turkiga ka hor waxaa tegaysaa horta reerkiina markaa tegtid ayaan turkiga halkaa kaa geynayaa. haye bay ka tir mar alli iyo marka ay gabadhayeen hadal inagu daalinina wallaahi daa waa naxay subxaan allah alcadiim. mar alli iyo marka ay gabadhay turkiga sida ay u tagtay waddankeygii Soomaaliya ay ku laabatay gabadhii wuxuu ka yidhi ii warano seeta khair wala alxamdulilah maanta reerkii baa nabad yimiday waa kaas dee alxamdulilah goormaade arrimihii kalena ii dhammaynayo na wax makuu sheegaa makuraa hooy aabbaha maku garab jooga haa way garab joogaa walaala makuu dhiiba aabbo haa ii dhiib ayaa dhegeyso makuron odayga aabaheed ahayd hee adeer inantaadu 2 dalqo oo dib u soo noqosho lahayn ayay iga tahay naxdintii adduunka wallaahi bilaahi ragga odhan mayna way wada xun yihiin subxaan allah. ilmo yaroo cunuga iyadoo yar buu ka tegay intaasoo dhan bay u samraysay nin la-aan bay intaasoo dhan u ahayd samirka iyada iskagay sugaysa qof ay jeceshahay ayuu ahaa. gabadhii naxdintii adduunka ayaa halka ugu timiday wallaahi naxdintii adduunka ayaa halka ugu timiday. maxaad ku hadlaysaa buu yiri odaygii intaasoo dhan bay ku samraysay gabadho markaasaad imika leedahay waan ku furaya adeer maan anaga naga xishoonayn waxaa ka bax buu ka yidhi calafkayga way dhammaatay adiga inantaada aniga iyo inantaada calafkaygii wuu dhammaaday intaasuuna ku joogaa gabadhaadana waxaan furay 2 dalqo oo soo noqosho lahayn. gabadhii demoralisee niyad jab adduunka ayay isku keentay wallaahi bilaahi qofku ma aragtay isagoo oo laga yidhi hooyadaa soo salaano hooyadaa ku noqo oo halkaa hooyadaabaan turkiga ka tegaysaa laga yidhi oo farxad ku tegto oo ninkeygii wanaag ku wada hadashay oo ma aragtay waxaan ku riday farxaddii adduunka ahayd oo laga yidhi un 2 dalqa ayaga tahay weliba qof aad jeceshahay subxaan allah alcadiim ma odhan kara wallaahi bilaahi diim waxaan ku yidhi raggii waxaa ka darayba dumarkiiyo iska laalaadinayaa nin naag leh xasbiya allah wa nicmo wakiil war ma rag la-aan baa gudhukii ka dhacday wallaahi waan yaabanahay. waa gabadhii maalintii dhowe dayaxdal nuurshe kasoo hadashay tiri dayaxdal nuurshaaban jecelahee naagtani may sii dayso maadaragtay dee hablaha qaarkood usii daysa annaga oo miidhan ayaa u baahan dayaxdal nuurshe. xasbiya allah nicmo war adduunka lagu ku socdaa war ma hablihii baa layska ilaalinaya mise raggii baa layska ilaalinaya ma hablihii baa iska ilaalinaya raggii hablihii dee la qabay ayaa iska ilaalinaya raggii mise dumarkii maxaa la dhaha raggii wax qabay baa dumarkii iska ilaalinaya war halkee ku soconna xasbiya allah wa nicmo wakiil. waa run ilaahay wuxuu u baneey 4 haddana ixtiraam ayaa jira talabaad qofba ma adragtay iskaga weeyaan wuxuu iska dhigo iskagu weeyaan gabadhu intaasoo dhan usoo marayso oo cunug yar oo u haysa 8 jira oo 8 sano uu kasoo maqnaa oo ma aragtay haddana kaga nixiyay 2 dalqadood yiri waan ku furay bilaa sabab la-aan waan ku furay yiri wallaahi bilaahi aad iyo aad naf kastaba naftaada kasoo qaad baa layidhi xasbiya allah wa nicmo wakiil wallaahi aad iyo aad baan uga demoraliseeyey gabadhay waxay kusoo gabagabaysay hadal ninba kaa haygu ekaado gabadhaydaa baan korsanayaa cimrigayga halkaas ayaan ku gaboobayaa. imse sano ayay sii sugaysay 8 sano ayay sugaysay oo nin la-aan ku joogtay umalihi ma aragtay nanba u baahan tahay mali laakiin mustaqbal kale oo la jooga oo iyo hoo la jooga oo ma aragtay wanaagsan oo ma aragtay oo caawinaya oo le walaashay waykan hoole inta 8 sano warwar iyo qaylo iyo buuq dhakhtar imse jeer bay dhakhtar gashay gabadhaasi imse jeer bay xanuunsatay waxaa ku dhacay maxaa la dhahaa gastri ayaa ku dhacay gaas baa ku dhacday iskaga dartii wallaahi waxaan ku yidhi ma garan karay oo waxay noqdeen raggii qaarkood waxay noqdeen aqliga ayay ka noqdeen xabad ukuna wallaahi bilaahi xasbiya allah. waa gabadh walaasheeda oo weliba gabadh uu jeclaa oo ilmo u dhashay oo ma adragtay uu guursaday oo haddana gadaal saa uga xumaynaya ana waxaan leeyahay qofkaas horta qof ma aragtay
saaxiya ma aha aan oran karaa qof ma aragtay intaasoo dhan isugaysa anoo saaxiya horta marka ugu horeysa waxaana qabanaysa saaxi la-aanba qofkan salaadii ilaahay ayaa ku qabanaysa qofku iimaan hadduu leeyahay salaad hadduu tukana horta iimaan buu leeyahay iimaankuna qofka bili-aadanka wuu qabtaa wallahi run ahaantii qofka bili-aadanka iimaanka ayaa qabta qofka bili-aadankanina bilaa iimaan buu ahaa bilaa qofku hadduuna tukana waa bilaa iimaan mooyaan ma oran karo anu ma tukado laakiin uma maleeyo qofka waaba bilaa damiir be maxaa bilaa damiir ka dhigay gabadh intaasoo dhan sugaysay oo tiri maad aragtay walaalo intaasoo dhan ayaa ku sugayaa haddana maanta xaafadiini ku noqo gurigiini ku noqo gurigiigu markuu ku noqdan ay ku noqotayna yidhi haddana walaalay waxaan isku haynaaba iska yiri nagu yidhi bal waa kasi sabab halkan uga keenaa sabab la-aan ma jirto gabadha waxay tiri ninku waa wuxuu ahaa daroogle xasbi allaahna ilaahay naga dambi dhaafo laakiin sabab la-aan meesha ma taalo ma naag buu haystay ma daroog buu lahaa ma garan kara bay tiri marka qof ma aragtay sabab la-aan ood qof aad jeclaydo mustaqbal aad wada samaysateen oo weliba aad wax ali iyo waxay jeceshaad usoo diraysid oo haddana eeyar aad ku tiri waan ku furay allah yahdiig ayaan anigu leeyahay wallaahi allah yahdiig ayaan leeyahay inaguna insha allah asxaabi usoo dira inaguna insha allah maxaa la yidhaahdaa gabadha waxay naga sugaysaa fikradiina taladiina ee inaga fadhidaa insha allah biidnillaahi kariim ana wallaahi da waxaan odhan lahaa walaalay gabadh yar baa tahay waa u yar tahay gabadhnimo waa u yar tahay samirkaaga badi samirka ha iska xumeyn ilaahay baa ku siinaya kii mid ka wanaagsan oo adi iyo gabadhaadaba ini wada jecel ini wada sima insha allah biidnillaahi kariim qoruxay samirkana badi ilaahay baa samirkaagii ku siinaya xabiibtiye wallaahi waan anu aad baan uga warwaray aad baan uga naxa insha allah asxaabi inigana waxaa inaga soo codsanayaa inaan ra'yi wanaagsan soo siisin iyo talo wanaagsan sida iyo nabadgelyo ayaa inii rajaynayaa qisada aad iyo aadka xanuunka badan ayaa maanta inii soo tabiyey waxaa ini leeyahay sida iyo nabadgelyo iyo ammaano allah waan salaamayaa dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu